سعود قلة كيغو أنقاريو أرليغيغو إنانكو أديغو الدنيا دا إنتان جيرو واجبكاغا أوشا أحدي كوغو مريا أرليغيغو نكسكا أرديكا بالدعي أدون سيكلا تغي سوموغا هنا سوموغا نكسكا أرديكا بالدعي أدون سيكلا تغي سوموغا هنا سوموغا نولشيسا أويدين سوموغا وحيكو أمبقادبا سوموغا أونتادي إنتاي سوموغا نولشيسا أويدين سوموغا وحيكو أمبقادبا سوموغا أونتادي إنتاي سوموغا أبلوغا هارينا تاي سوموغا دحلمو وينا تاي سوموغا إساقو إنو كولياي سوموغا أبلوغا هارينا تاي سوموغا دحلمو وينا تاي سوموغا إساقو إنو كولياي سوموغا وحسيت بؤور سماتا أرليغيغو إربكا مريدي كارو أقون ياري بلشانا لكويدو udubkiyo dhigihiyo calalka iyo raarkaba aqalkan ka helayo udubkiyo dhigihiyo calalka iyo raarkaba aqalkan ka helayo intaad dibadda joogo haajashu ii timaadana kilaysoo ambinaye ilkay ku yiilo arligaygo intaan dibadda joogo haajashu ii timaadana kilaysoo ambinaye ilkay ku yiilo arligaygo inaan ku ogolaado adduunyada intaan jiro aayaha ka taliya axdi kuugu maraya arligaygo ninkasaka ordeeka baaldhace addoonsiga la jira soomooga hona soomooga ninkasaka ordeeka baaldhace addoonsiga la jira soomooga hona soomooga noloshiisa oo idin soomooga waxay ku ambaqaadaba soomooga oontaadi inay tahay soomooga noloshiisa oo idin soomooga waxay ku ambaqaadaba soomooga oontaadi inay tahay soomooga ablooga hadhina tahay soomooga dhaxalawa wayna tahay soomooga isagu inuu ku leeyahay soomooga
ugu horeyn wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda maamul goboleedka Hirshabelle, wasiirka xuquuqul insaanka maamul goboleedka Hirshabelle, maayirka magaalada Beledweyne, gudoomiyaha shirkadda Kaamil iyo ku-xigeenkiisa. waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. bacda salaan, maanta ay taariikhdu tahay 27 bishii tobnaad 2019 waxaan ka ambabaxaynaa haddii ilaahay yiraaho madaarka magaalada Muqdisho. waxaan u baxaynaa haddii ilaahay yiraaho magaalada Beledweyne oo maalmihii la soo dhaafay xaalad ku sugneed fatahaado iyo dhibaato, si aan ugu gargaarno shacabkayga ku nool maamulka Hirshabelle. waa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda iyo magaca xukuumadda iyo magaca dowladdaba. waxaan bartan ka cadaynayaa maanta inaan diyaarinay 3 diyaaradood oo u ambabaxaya magaalada Beledweyne. diyaaradahaas waxay wadaan teendhooyin, marakaneecooyin iyo bustayaal, maadaama fatahaado ay ka dhaceen meeshii oo dadkii ay ku barakaceen. waxa ugu horeeya oo dadka inaan ka caawino waxa weeye inaan horta hooy u dhisno si ay u helaan hooy, kadib bay noloshu imanaysaa. maanta gurmadkii ugu horeeyay waxaa kaalin weyn ka qaatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo tiimkan Kaamil ee walaalaheen oo naga caawiyay diyaaradaha maanta aan ku baxayno Beledweyne, alaabta aan ku qaadayno iyo daabulaadii alaabta la daabulayay. waa wax aad iyo aad u fiican oo qurux badan. waxaan halkan baaq uga dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay waxa maanta rafaadsan waa shacabkiini, waxa maanta u baahan gargaar waa shacabkiini. in aad ku eegataan ma ahan. maanta waxa rafaadsan waa hooyo Soomaaliyeed, waa aabba Soomaaliyeed. waxaa la rabaa, Soomaalida waxay ku mahmaadaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. in aan gacmaha isqabsano, walaalaheen aan u gurmadno, una gargaarno insha Allah haddii ilaahay yiraaho. saacadaha soo socdaan Beledweyne tegi doona haddii ilaahay yiraaho. waxaan gurmad wadana halkaas ku arki doontaan. waxaa kaloo jira fatahaaduhu kuma koobnayn Hirshabelle, maamul goboleedka Jubbaland laftigiisa waxaa ka dhacay fatahaado Gado iyo Koonfur Galbeed. iyagana insha Allah qorshaha ay noogu jirtaa inaan sameeyno, iyagana aan u gargaarno oo gurmad aan gaarsiino. laakiin maanta waxaan ka shaqaynaynaa waa hawsha Beledweyne inaan insha Allah haddii ilaahay yiraaho gaarsiino waxaan hayno. kadib qorshahayga kale qaabkan u gaarsiin lahayn Koonfur Galbeed iyo Jubbaland qorshuhu waa noo diyaarsan yahay, waana gaarsiin doonaa insha Allah haddii ilaahay